waxaa jira isbeddello waaweyn oo ku saabsan dhanka fahanka iyo la socodka adduunka. Waagii hore waxaa jiray in la hago ilaha xogta iyada oo markaas dalalka awoodda leh ay hogaamin jireen cidda wax ogaanaysa, xogta la ogaanayo iyo sida ay dadku xogta ogaanayaan. Nasiib wanaag xogtii aad iyo aad ayay u baahday, waxayna gacanta u gashay qof walba inuu awood u yeesho inuu noqdo xog ogaan. Marka laga hadlayo garaadka macmalka, siyaasadda geopolitics-ka, xitaa waxbarashada tayada sare leh, waxaa muuqata in isbeddel weyn uu soo waajahay qaabkii dadku ay wax u ogaan jireen. Taas waxayna siinaysaa fursad ah in aan joogno xilli loo siman yahay in la tartamo. Waagii hore waxaa lagu kala horeeyay capacity-ga aqoonta ee dal walba u qarsoonaa. Tusaale ahaan oo kale, shirkadda Coca-Cola ayaa waxaa la sheegaa formulada ay ku samaysan tahay Coca-Coladu inay tahay shayga adduunka ugu sikradsan ee la ilaaliyo. Sidaas waxaa la mid ahaa aqoonaha kala duwan ee la xiriira sida hubka wax gumaada, teknolojiga casriga ah iyo wax walba oo dal uu hodan ku yahay. Sida ku qoran buugga Only Paranoid Survives, waxaa la gaaraa ama insaanku gaaraa marxalado ay sinaadaan ama ay isbedelaan strategic inflection points wax la yiraahdo, oo xilliyo isbedello waaweyn ay dhacaan. xilliyada isbedelada waaweyn ay dhacaan waxaa dhacda in institutionno, tusaale ahaan oo kale buuggaas wuxuu ka hadlayaa shirkadaha teknolojiga la xiriira, laakiin waxaa ku dhex aasan wax walba oo markaas wax hogaamiya. Tusaale ahaan oo kale, waagii hore waxaa jiri jiray taar, waxaa looga gudbay telephone oo mobile ah, kadibna smartphone baa looga gudbay oo maqal iyo muuqaal leh. Marka haddii ay yimaadaan waxyaabihii hore u jiray wax la mid ah ama wixii wax siyaado ku ah, waxaa abuurmaya wax la yiraahdo strategic inflection points.